dhaqaalo kuma xidhna badnaanta iyo yaraanta ee wuxuu ku xidhan yahay fahamka maskaxeed ee qofku dhaqaalaha uu fahmo tusaale haddii qofka loo dhiibo $100,000 oonu maarayn garanaynin wuxuu kaga dhamaanayaa bil haddii loo dhiibo $1,000 wax maarayn garanayana waxa laga yaabaa inuu $1,000 si fiican u kala hago waad aragtay dad badan oo waaqaca markhaati inooga ah dhul lahaa guryo lahaa wax fiican dhaxlay ama la siiyey markiiba way ka kala daadatay oo dee qorshe la'aanta sumarba meel ula cararayay bay ka baaba'een dad kale waad garanaysaa min zero to hero dee hoos ka bilaabee $1 meel fiican gaadhay marka qofku inuu wax dhaqaalaysto isku geysto isku habaysto boqolkiisa $1 iyo halkiisa $1 dhitaystaa daba ka warwar maayo waa sidii saxda ahayd ee sharciga iyo diinta iyo waaqica iyo caqligaba waafaqsanayd weeye marka nabiga waxa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu reerkiisa quutu sana inuu u kaydin jiray cidina odhan maysa qadar buu ka warwarsanaa iyo waxbuu waayayay toona adigoo og ilaahay arsaaqdiisu inay ilaahay ku maqan tahay haddana laba dheel ma hungoobaa loola jiray laba dheelood leh oo dhiisha ma isticmaalo dhiishana wax ku yar tuurtuuraa ma hungoobo mahmaha soomaaliyeed hooyooyinkeedii iyo dadkeennii dumarkii aan ka barannay iyo dadkeennii hore qiimo badan weeye